معلم كراجة هرت معلم خالي واي dadaalkii la sameeyay inaan noqonay best keeper ciyaarihii hadda aniga joogay Ethiopia marshaal la siiyay goolhayaa ugu fiican ما شاء الله توبرkiisina wax badan aan ka fahmin golayaasha xulka qaranka Soomaaliya ayaa wada diyaar garow adag waxaana dhalinyaradan xirfadooda kor u qaadaya macallin Xasan Faarax oo ah tababaraha golayaasha xulka qaranka balse ciyaaryahanka kooxda horseed ee nadiga madbacada qaranka Cabdirasaaq Faarax Umar Garooje ayaa ku soo beeray horumarinta iyo kor u qaadida xirfadda golayaasha xulka qaranka maanta waxaa imaaday training-kii under 17ka goolkiibarada macallin Xasan Faarax halkan ka salaamaya aad u mahadsan asaga ayuu dhahay labadan bari iga nasi marka saas u imaaday maanta wallahi qalina aad u diyaarsan ciyaalka ma sha Allah ilaahay ka sugo waxa mahadle Xasan Faarax waqti geliyay dhalinyaradii awal haysana oo la xisaabin jiray 2 3 4 maanta waxa arkay ilaa 9 oo diyaarsan oo asaga soo tababaray oo aad u diyaarsan oo future-kan wax u tari karaan under 17ka ama 15ka tan qoto qaar ka mid ah golayaasha xulka qaranka ayaa u mahad celiyay macallin Xasan Faarax iyo Cabdirasaaq Faarax Umar Garooje kuwaas oo dadaal badan geliyay horumarka xirfadooda waxayna inta ku dareen in rajadooda ay tahay inay guul gaarsiiyaan qaranka والله الحمد لله horta ilaahay ka suko Xasan Faarax haduu ahaaleen heerkan joogi lahayn markii wadna ma qaran liigu waco alxamdulillah macallinkii iyo macallin Garooje oo mahad celinay wallahi macallin Garooje horta macallin qaali waaye yani معال حسن فرح بوسكس نكنو بوحرة ونكنو بوحينا وهذا يعني تبركي سئي مركي هربو سالي توانك حتى ما إسديد توانك إلا يو سنة بدن تبرو نسيناي كروج والله معنينكين الوضع ما شاء الله تبركي سنة وح بدن كفهم وحياة كبر نحاول إن بون صبيحتانك يو يبون يكنترول كباسك والله وح بدن إسبدل بدن هرتو أسكدر ما شاء الله إن وح كستيدي من إلهي دمستراليلا والله وحو ما دعلنا إنه نلسي جولة وجعلنا golaayihii hore kooxaha horseed ee nadiga madbacada qaranka Cabdirasaaq Faarax Umar Garooje ayaa bogaadiyay dadaalka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta isagoo guul weyn ku tilmaamay abaalmarinta golaayaha ugu wanaagsan oo ku guuleystay Cabdiqaadir Marshaale oo ah golaayaha xulka qaranka daa'irta dadaalkii la sameeyay inaan noqonay best keeper ciyaarihii hadda aniga joogay Ethiopia Marshaale la siiyay goolhayaa ugu fiican sharaf weyn inoo tahay Soomaaliya haddaan nahay macallimiinta goolkiibarada haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa diyaar garow fiican lagu jiraa saa socotay macallin Bashiir iyo macallin Nuur Amiin iyo macallin Shabac oo asagana London ka imaaday oo aniga camal qurb joogto noqday marka dadaalkaas lagu jiraa insha Allah waxaan rajaynaynaa in gool aan la soo hoyin doono si kastaba sanadkii tagay 2022 golahayaha Cabdiqaadir Marshaale ayaa hantay abaalmarinta golahayihii ugu wanaagsanaa tartankii bariga iyo bartamaha Afrika ee ku qabsoomay dalka Ethiopia isagoo dhinaca kala duwan wanaagsan ka ciyaaray hanashada koobka Sakava ee xulka qaranka farxad weyn horta ay tahay in ma aragtaa markii uu horeeyay xulka qaranka Soomaaliya ama talo bandhig fiican iyo ma aragtaa hawlaha badan ma aragtaa ku yeeshtay runtii shaxii 12 uu fiina tartankana kasoo mid noqday runtii anagana sharaf ay noo tahay dalkeena sharaf ay u tahay runtii